Pentagon-ka ayaa sheegtay in ciidamada Ruushka ee ku sugnaa agagaarka degmada Mariupol ay ka baxeen oo ay aadeen dhanka waqooyi iyaga oo ka tagay qiyaastii 2 guuto si xeelad dagaal ah ama ilaa 2,000 oo askari. Afhayeenka Pentagon-ka John Kirby ayaa sheegay in xitaa iyadoo duqeymaha cirka ee Ruushka ay ka sii wadaan Mariupol, ciidamada Moscow ay weli sameynayaan duqeymo iyo horumar dheeri ah iyadoo uu dagaalku weyn uu ka socdo gobolka Donbas ee bari. Waxa uu sheegay in uusan wax isbedel ah ku arkin dardargelinta Ruushka iyadoo 9 May ay soo dhowdahay. Kirby waxa uu sheegay in Mareykanka uu weli qiimeynayo in Ruushka uu dib uga dhacay waqtigii loogu talagalay oo aanu sameyn horumarkii Donbas ee uu filayay. Maamulka Shiinaha ayaa ku sheegay 53 ruux tirada dadka ku dhintay dhismo ku soo dumay bartamaha Shiinaha sida ay ku warantay warbaahinta dawladda iyadoo ku dhawaaqday in la soo afjaray howlgalkii samata bixinta. Dhismaha ganacsiga ee magaalada Changsha ayaa dumay Jimcihii la soo dhaafay taasoo kicisay in ka badan 6 maalmood oo isku day adag ah oo lagu doonayay in dadka badbaaday laga soo saaro burburka iyo biraha shubka hoostooda. Baadagoobkii iyo samata bixintii dhismaha ku dumay Changsha waa la soo gabagabeeyay. TV-ga dawladda ayaa sidaas sheegay Jimcihii. Dadkii ku go'doonsanaa goobta shilka ka dhacay dhammaantood waa la helay. 10 qof ayaa la soo badbaadiyay, 53 qofna way dhinteen. Wu Guiying oo ah sarkaal ka tirsan magaalada ayaa raaligelin ka bixisay shilkan intii lagu guda jiray khudbad Jimcihii iyadoo sheegtay in ay aad u murugsan tahay waxayna bixisay raaligelin dhab ah. qofkii tobanaad ee asoo nool laga soo saaray burburka wax yar kadib saqdi dhexe ee Khamiistii ayaa la aasay. Warbaahinta dawladda ayaa goor sii horeysay sheegtay tirada la xaqiijiyay ee ku dhimatay burburka ayaa hore u ahayd 26 ilaa fiidnimadii Khamiistii. Burburka dhismayaasha ma aha wax ku cusub Shiinaha sababtoo ah badbaadada iyo heerarka dhismaha oo daciif ah iyo sidoo kale musuqmaasuqa ka dhex jira saraakiisha loo xilsaaray fulinta. Booliska Bangladesh ayaa xiray 450 qof oo Rohingya ah oo ku dabaaldegay Ciidul Fidriga meel xeeb ah taas oo muujinaysa dulqaad la'aanta sii kordhaysa ee loo qabo qaxootiga muslimiinta ee Rohingya. Bangladesh ayaa ka mamnuucday 920,000 oo u badan qaxootiga muslimiinta Rohingya in ay ka baxaan xerooyinka siliga ku hareeraysan ee ku yaal koonfur bari halkaas oo ay ku xayiran yihiin ku dhawaad 5 sano. Intooda badan waxay u qaxeen Bangladesh kadib markii ay weerar military iyo xasuuq ba'an kala kulmeen xukuumadda militariga Myanmar ee dariska la ah Bangladesh 2017 oo uu Mareykanku bishii March u aqoonsaday xasuuq. Afhayeenka booliska Rafiiqul Islaam ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee AFP in saraakiishu ay ku xireen in ka badan 450 muslimiinta Rohingya ah howlgalo ay ka fuliyeen magaalada Cox's Bazar goor dambe oo Arbacadii ah maalintii labaad ee ciida oo ah munaasabad weyn oo muslimiintu u dabaaldegaan. Rafiiqul Islaam waxa uu sheegay in howlgalku uu qayb ka yahay talaabooyinka ammaanka ee ka socda degmada loo tamashlaha tagay ee ugu weyn dalkaas oo ay malaayiin dalxiisayaal ah soo jiitaan xilliyada ciidaha oo ay ku jirto Ciidul Fidriga. Dadka la xiray ayaa lagu wadaa in dib loogu celiyo xeryaha. Dhowr qof ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee AFP iyagoo ku sugan saldhigga booliska inay xeebta u aadeen damaashaadka ciida. Waxaan halkan u nimid madadaalo laakiin isla markii aan nimid boolisku wayna qabteen. Wax qalad ah maanu sameyn kaliya waxaan fadhinaa xeebta ayuu yiri Maxamed Ibrahim. Ani iyo ninkaygaba waxaana soo qaaday booliska. Caruurteyda waa gaajaysan yihiin ma aysan cunin wax cuno ah maalintii oo dhan ayay tiri haweeney lagu magacaabo Samjida oo 20 jir ah. Ciidamada Ruushka ee ku sugan magaalada Mariupol ee dalka Ukraine ayaa maalintii labaad sii wada weerarka dhulka ee ay ku hayaan warshada birta ee Azovstal sida ay ku sheegeen bartooda Twitterka sirdoonka militariga Britain. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa khudbad muuqaal ah oo uu soo duubay ku sheegay in ciidamada Ruushka ay weli duulaanka ku hayaan oo ay duqeynayaan warshada Azovstal oo xilligii Sofiyeetka halkaas oo ay gabaad ka dhigteen dadka rayidka ah iyo ciidamada militariga. Dhanka kale kolonyo cusub oo qaramada midoobay ayaa laga sugayay Mariupol si ay dadka rayidka uga daadgurayaan warshada birta ee go'doonsan taasoo noqotay bartii ugu dambeysay ee iska caabinta ciidamada Ruushka ee ku sugan magaalada dekedda leh ee koonfurta dalkaasi. Pentagon-ka ayaa beeniyay inay ka bixiyaan sirdoon goobaha ay ku sugan yihiin generaalada Ruushka ee ku sugan furmaha dagaalka si ciidamada Ukraine ay u dilaan. Isagoo ka jawaabaya warbixintii New York Times ay qortay ee ku saabsaneyd taageerada Mareykanka ee ciidamada Ukraine, afhayeenka Pentagon-ka John Kirby ayaa sheegay inay run tahay in Mareykanku uu ciidamada Kiev siiyo sirdoon military si ay dadka Ukraine uga caawiyaan difaaca dalkooda. Laakiin ma bixin xog sir ah oo ku saabsan halka ay joogaan hogaamiyaasha sare ee militariga ee goobta dagaalka ama ka qayb qaadashada go'aamada beegsashada ee militariga Ukraine ayuu yiri Kirby. Xisbiga muxaafidka ah ee ra'iisul wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa lumiyay gacan ku haynta dhufaysadii dhaqanka ahaa ee London waxaana uu khasaare kala kulmay meelo
meelo kale oo doorashooyinka deegaanka iyada oo xisbiyada mucaaradka ay ka faa'iideysteen dhibaatooyinkii ugu dambeeyay ee dowladda. Natiijooyinkii hore ee Jimcihii ayaa muujiyay in xisbiga Johnson laga tuuray Wandsworth oo ah xarun canshuur yar oo conservative-ka ahayd tan iyo 1978 taas oo ahayd mid ka mid ah bartilmaameedyada ugu weyn ee xisbiga shaqaalaha ee mucaaradka. Xisbiga muxaafadka ayaa sidoo kale sheegay in ay gacantooda ka baxday degmada Barnet oo uu xisbigu qabtay laba doorasho mooyaane tan iyo 1964. Tani waa digniin ka timid codbixiyayaasha muxaafadka, ayuu yiri Daniel Thomas, hogaamiyaha muxaafadka ee golaha Barnet. Tirada guud ee la filayo goor dambe oo Jimcaha ah ayaa bixin doonta sawirka ugu muhiimsan ee ra'yiga dadweynaha tan iyo markii Johnson uu ku guuleystay aqlabiyadda xisbiga muxaafadka ee ugu weyn in ka badan 30 sano doorashadii guud ee 2019. Codbixinta ayaa ah tijaabadii ugu horeysay ee doorashada Johnson tan iyo markii uu noqday hogaamiyihii ugu horeeyay ee British ah ee xasuusta nool ee jibiyay sharciga intii uu xilka hayay. Waxaa lagu ganaaxay bishii hore inuu ka soo qayb galay kulan dhalasho oo ka dhacay xafiiskiisa sanadka 2020 isaga oo jibiyay qawaaniinta jahwareerka bulshada markaas jirta si loo xakameeyo fiditaanka COVID-19. Natiijadii hore waxay muujisay in xisbiga muxaafadka uu lumiyay 92 kursi oo golaha deegaanka ah. Xisbiga mucaaradka ee shaqaalaha ayaa helay 23 kursi halka xisbiga liberaalka uu helay 42 kursi. Natiijooyinka ayaa go'aamin doona ku dhawaad 7,000 oo kursi oo golaha deegaanka ah oo ay ku jiraan dhammaan kuwa London, Scotland iyo Wales iyo 3 meelood meel kuraasta inta badan England inteeda kale.